عشان كبر أو أنت مع صناعنا بس إيش ترجع بس أنا هاي نحلو سأقول كذا فرع هذا يواس كده وحنا نقول شغلي سيء جناس يصير وسوي جسد أنا لفتكيك مقالة ذا مقتهي أصحابكم مدحي لك والله waxaan laahay naqshadii guriga xageed kaysay khaanadana kuma jira drafiskan waan ka laahay muhiimna uu yahay maxaa qaldan warqadii abaayo waxaan geliyay xagan waxaad idib san maxayna inta ku jira naqshadaha guriga ganacsiga istiyaar waxaan qoray projectkan daruuri ayaan wahay tan way ii saxiixan tahay ma sha Allah tii kale ayaa raadinaya project warqadii kale raadinaya kuwan way heshiisay soo kuwaas heshiiskoodu waa ii saxan yahay lacagta ma ku hormariyay lacagta iyo wax walba waa ii diyaar laakiin kuwana wax yar iga dhiman yahay inaan saxiixan waan rabaa heshiiskan inaan adiga oon ogeyn aan isku saxiixa keligii ayaan diiday kan si xaga يكي واحد سلام من هذا صحيح سيدي جعلي النقش الدروان كذا طن دبقي إذا لا دصايا أنت بدل النقشدوين كا وواحد أنا قرنه ذكرنا أصلا بكا هي كهلا النقشدوين كمان شو بيجرو بكمل أنا مو رسالة بكا صحيح نقشد النقش هستا مهم سي حاجة مهمة إيدي يا سلام ما شاء الله وين دمست walaalkay maalmaha saay mashquulka saay u go'ayna master abaayo qofkan waxaan maleynayaa qof u baahan naqshad guryaha in laga hadlo soo dhaweey hallo walaal maxaan ka caawiyaa waa shirkadda naqshadeynta ee Humayra maxaan ka caawiyaa haa waan sameynaa wax walba ha guri dhammaystiran haddii aad rabto dabaq ay haddii aad rabto apartment iibana waan haynaa haa wax walba haa bye soo dhawo haa okay haa walaal soo dhawo waan ka caawin karnaa wax walba insha Allah hallo walaal soo dhawo ها waa shirkadda naqshadeynta waa sameynaa xafiisku amaan kartaa inta ma ku furaya adressana ku soo diraya waa masantaa ما شاء الله ولا maalmaha mashquulkaaga saaid weeyaan xagga shaqada waxaad moodaa inaad maaragtay aad ka saarayso maxaa qaldan maalmahan awal waxa ku warki jiray adoo maqan oo meelo kale ku maqan xaaladahaaga iga waran gabadha xaaladeed abaayo aniga waa fiicnaa soo dhawo walaal maxaa ka caawinaa waa shirkadda naqshadeynta guryaha waa sameynaa وهركز على مسكين أقصد بيننا أبغى مشغولك كستم كسائد مش على زائد نرجع للنوم اللي بصنع كتاب واحد بنا عادي نوضين أنا هو شيء دي وحاجور تاني عقبضة جعل كعيدة هانا هي تينا بس كحلوة كساري هاشي كبر أو أنت مع صناعنا بس إيش ترجع بس أنا هاشو أنا حلو سأقول كذا فرع هذا يواس كده وحنا نقول شغلي سيء جناس يصير وسوي جسد مركب والله sidaas oo dhan waxaa dheheen waan ogahay gabadha aad jeclaad inay ku timiday sababteedana aad ku weyday habeenkaas laakiin wax walbo dhaca aniga ayaa gabadhaas ku soo kaxaynaya aniga ayaana la hadlaayo mar walbana waxaan ku dhahaa walaal gabadha ibar iikay gurigeeda itus
anigana xataa waa raadiyaa maalmahan oo dhan marka walaalkayga ma doonayo jacaylkaaga inaad weyso waa sidaa ku weyn abay waxa sidaas u diribtay maaha wala iska saartay aniga waxa soo dhan maanta waan allaabay go'aankeedaan qaatay oo meel cidla ayaan ku tuuray maanta laga bilaabo mar rabo inaan familkayga iyo ganacsigayga aan dhulka dhigo maanta wax laga bilaabo waxaa rabo inaan kor aan idin qaado oo aan idin dareensiiyo qofkan inuu yahay qofkii aad kusoo daasheen waxbarashadiisa maantana shaqada uu hayo idinka soo baawtihiin hadhowna aad aniga wanaystaan marka haddaan arrimo jecel maanta ku mashquulo yes waa shaqaystaa lacag waan hayaa waqtiga guursan laha waa la joogaa laakiin ma ahan calafkii waqtigii soo gaarin inaan shaqadeeda u waayo ganacsigayga u waayo idinkana aad igula orodaan maanta sababteeda halkan joogta oo maraykan lagaaga soo diray intuu maatay intaas waxaa la arkay inaan shaqaynaynin oo shaqada xaggana ka jirto maanta adoo faraxsan oo waxaan rabaa qofkii hore aad igu taqaanid inaan ahay adoo inaan halkaa ka baxay hooya ninkaa u tagtid inaad wiilkeena u shaqaynaya una sheeg hooya ninkaa u tagtid inay gabar ii soo raadiso aniga gabar naasanayo waa iska dhaafay inaan gabar raasado mar rabo waxaan islahaa nin weynaa tahay dooqaada ka ciyaar oo gabadha adiga aad keenta rare kale aad laakiin waan ka qusqaatay hooyo u sheeg gabar hay keento okay ugu horeynta horta walaal farxadaada waa farxadayda masha allah haddii aad faraxsan tahay aniga wax iga dhiman ma jiro laakiin hadday wax ku qarsoon yihiin oo aad rabto inaad iska baabiiso ama aad maaragtay mashquul kale isku rido aniga ayaa walaashaa saaxiibtaada waxba hayga qarsoon waxaan jecel ma lahan wax kaa qaranayo ma lahan aniga waxaan diyaar u ah maanta wax laga bilaabo shaqadeeda inaan soo jeesto oo aan arrimaha jacayl iyo gabadhaas waa afaareeda aan faraha ka qaado qofkii telefoonka kuu soo diray anigu ahaa waxaan u baahanahay naqshadaynta guriga ma i tusi kartiin qaabka wax u samaysay waa anaga naqshadaynta guryaha kambaniga naqshadayo dhismaha haddii aad u baahan tahayna waan ku naqshadayn karnaa halkan ayay ku qoran yihiin naqshadaynta guryaha waa ilaa iyo 110 nooc dooqaaga waad ka dooran kartaa kadibna waan ku naqshadaynayna soo dhawo waa mahadsanta walaal shaqadiintiina ma badan tahay maasha allah waana ka hela kan sax kana u baahanahay okay waa bridge waa page 10 page 10 naqshada page 10 ka hesho kaasaan u baahanahay si degdeg ah waad helaysaa waa naqshad aad u qurux badan oo doortay masha allah naqshadan naftirkeeda waxaa gacan weyn ka qaadatay oo gar lagu siisay abaayadeeda dooqaaga mashuula waa naqshad aad u qurux badan waxaan rajeynayaa inuu ka heli doono aad baan u jecelahay customerkeena inaan soo dhaweyno anagoo ku faraxsan inaan la shaqeyno naqshadaynta guryahana waxaad
yacni ogaan kartaa gurigaaga markuu dhismuhu ku dhamaado uu banaanka imaado quruxdiisa soo ma si fiican ganacsigan magaalada anaga keenay shirkada kaliya waxaan nahay ganacsigan magaalada keentay oo ka warhaysa sida awgeed guryaha badankooda magaalada boqolkiiba 85 anaga naqshadayno oo dhisno oo kusoo dhaweynayna markii mar labaad saxdo maxaan ka caawiyaa hay alo maxaa tiri abo kuma maqlo codka kor u qaad alo oo hay abo iran aad ay u qoran waan wada qaadan karaa marka shaqada soo diyaarisa ama badan insha Allah shaqooyinka badan laakiin xafiiskan ha dhib ma laha intaas hadday tahay inuu waqti la qaato waa muhiim ha banaanada baa iska fiican in banaanada ku haystaa gaadan kana taala may waxaas dib ma jiraan aan laftirkeyga magaalada mugtahay asxaabtuna dhahe laakiin dad asxaabtinimada jeclaysatay dhib ma lahaas oo la qaadan karnaa waqti maya okay nabadgelyo buu xafiiskan ku yar mashquulsanahay insha allah haye walaal macaan insha allah khayr badan haye walaalkayga yaan hadlaysaa hilkaade customka ay ahaayeen kastamada hayan shaqada maanta ma dhameynay xaggan ayaa ku eg tahay oo waqtigan insha allah xaafadda injino wahay oo baxeeda